فلسطين محمد صلي ما ولا دعوة كاتالة wiilkaadi oo jajabad wadada laga qaaday ciidan aan qaasal dhig imaaw lagu dhahay imaaw aniga lugta oo ka jabe gacantan kale oo ka jabe laba gacanta kale tan oo ka jabe madaxa bursa laga garaacay dhiig iyo xijimaha fadhiisteena laga meeray intee jijibisay waxay ku tuurtay kabarka jaadka meesha lagu gadaayo qashin qubka weedo wala wajira bismillahir rahmanir rahim wara saxaabay ma ii sheegi kartaa sababta qasabta in wiil yar oo saqiir oo 2 sano jiro isaan ay oo sidaan oo kale u dhibaatayso oo waliba laba gacmood iyo lug ka jabiso madaxana ay buris ugu garaacdo ayadoo maseer wiilka abiis ayaa qaba waxay sidaas u galaysaa waa wiil yar oo eedo u tahay oo abeed qaba marka dadkii adduunka waa wuxuu noqday dhowr mar arnay eedo ilmo eedo tahay qalaas dilayso oo dhibaataynayso haddana waxa arkoon mar kale waxa arkoon in wiilka ka dhibaataynayso bal muuqaalka adabasa muuqaal aad u fajacan waayo muuqaal walaal xadin waaye waxa goobta jooga wiilka la jibiyo hooyadeed iyo waxa ayeedeed oo abaasha ka hadlayna oo bixin fiicanaysan gabadha waxay rabtaa booliska dhakhtarka ayaa hadar warkan oo fahadon asxaabe dhageysan warwaayaan wallahi asxaabe bismillahir rahmanir rahim wajira oo aad u dilan jajaban burbursan ayaana loo keenay asagoo xaaladiisu ay tahay mid miyir daboolan naqaskay ku dhigan tahay waxaan ku suganahay Gurmad Voluntary Hospital oo ku yaala waa kana marka hadda idaacadii oo waxa booqanaysa idaacada Muqdisho ku kamida TV-da booqana marka isbitaalka ee booqana oo wiilka yaraay lagu dabeebay nabada muuqaalka fada tareedisho ee degmada Kaxda waaxda 15ka bishan September halkan waxa ka dhacday isla xaafada tareedisho dhacdo argagax leh saameysana qulubta bulshada Soomaaliyeed waxaan warbixin idin kaga diyaarinay dhacdadaas iyo sidee u dhacday la socdo waan gabadha wariyaha ayaa hadda waxay sii galaysaa isbitaalka ayada war faahfaahin isbitaalkaas nagu soo duubeysa marka wada socona oo dhageysano waa wax mucjiso la waaye mar walba adduunka walba marka jirto maalin walba cusub wax cusub arkaysaa adduunka ayaa maalin walba la yaab leh oo wax cusub arkaysaa hadda ilmiyarka saqiirada ayaa loo soo dhigtay in la dilo oo dhibaateeyo ama seer dartiis marka muuqaalka oo dhameysano asxaabe dhacdo aad u naxdin badan oo argagax iyo anfariir ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed ayaa ka dhacday deegaanka Tareedisho ee dowladda magaalada Muqdisho haweeney ayaa wiil yar oo eedo u tahay isla markaasna uu dhalay ninkeeda si arxan daro ah deegaanka Tareedisho gaar ahaan waaxda 3 degmada Kaxda hooyada dhashay Soomaaliya ilaahay nagu dhashay wiilka waa wiil 2 sano ma ka weynaaday u bato waa u jiraa miskiin ilaahay waa wiilkaas waa asaata oo yaaban yahay ama kaaga waa u sheegan fa waxa faashada ku duuban daqarada madaxa ugu yaala daarti inta madaxa u yaala war saqiirka ina aqrin la sawdiinaysa markii dhigi saqiirka markii la daadiyo in aqrin la sawdiinay marka wallaahi muuqaalka wallaahi bilaata adduun waxa joogna nooc kala joogna dadka saqiirada oo maarta laga argaysto hooyada yar oo lagu magacaabo Falastiin Maxamed Maadey ayaa inooga warbixisay siday u dhacday dhacdadan naxdinta leh waxaana ay sheegtay in marka hore wiilkeeda yar ee Cabdikaafi uu ka codsaday awowga aabaha dhale in muddo 2 asbuuc ah uu soo haysto intaasi kadibna uu aabaha wiilkiisa awowga ka soo watay balse nasiib daro wuxuu geeyay eedada iyaduna ay jirdil xoogan u geysatay kadibna ay ku turtay goob qashin qub ah isla markaasna dadkii ka agdhawaa hareeraha xaafada geeyay saldhigga deegaanka bismillahir rahmanir rahim magacayga Falastiin Maxamed guud waa magacayga deegaan dibkaan soo gaaray maalintii bishan 15keeda dibkii soo gaaray أنا واحد وأنا قرقي إسكجوا على صواعد صلق لي صواعد فلسطين محمد يا صلق ما ولا ده دعوة كطالة بس صلق هي سؤال